ururkan aan ka soo hadalnay dadka maamulaya usbuuc ka hor baanu halkaan wada fadhiisanay. waxay ii sheegeen oo ii keeneen inay rabaan inay doorasho sameeyaan. meesha mushkiladu ka bilaabatana waa halkaas. haddaan backgroundka mushkilada idin hadda maanta qeyradu ka yeerisay markay halkaan ii soo fadhiisteen waxay ii soo bandhigeen soo jeedin ah inaanu doorasho galnaan rabno. waxayna tuseen sidii ku dooran lahaayeen oo ka mid ah inay rabaan inay gobolada ama isteedada uga yeeraan 5 qof ayagoona magacaabaan 30 qof la fariisto la magacaabo oo la doorto executive-kii ama hogaankii ururkaas. talaan ka sii wasaaradda ahaan talaan ka siina waxaanu nidhi sidaan hadda nooca dalku u socdo iyo qaabka hadda doorashooyinka dalku u jeestay meel dambe inta dad meel iskugu yeerto qol ku shiro isku dooranay waa dhaaftay. doorashadu waa inay soo qaadataa muxuu ahaa heerkaas ay soo martaa levelkaas soo martaa halkaas isugu yimaada. waxaan u fargareeyay marka in aan siiyo looyaro waana la hadlayba shirkad looyaro ah oo gabdho weliba ah ayaan u yeeray oo engage gareeyey. waxaan idhi waxaan siin howlwadeenno wasaaradda ka tirsan idinkuna howlwadeennaha aada leedihiin haddii jiraan ku darsada fariista mashruucan oo aan idiin sheegay oo ah horumarinta 5 sano qaybta ay kaga jirto WCC-da akhriya halkaas aynu ka sameyno frameworkii ururka haweenka Soomaaliyeed ee wada tashiga laga sameyn doono kaasoo markii deegaanadu ka yimaado qorshaha iyagu ahaa inay haweenka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed ee siyaasadda ku jira kuwooda muxuu ahaa wasiirada ah ama soo noqday kuwooda xildhibaanada ah ama soo noqday kuwooda jaamacadaha macallimiinta ka ama soo maray kuwooda ganacsatada ah kuwooda muxuu yaani elite dumarka Soomaaliyeed markii in meel la isugu keeno councilkaas ka soo dhasho ka bacdana halkaas ay ka abuurmo ururka muxuu ahaa la tashiga haweenka Soomaaliyeed oo aanu qorshaha iyaga wasaarahaan ahaa inaanu dawladda ka dhaadhicino iyo golaha wada tashiga qarankaba in urur guddigaas ama councilkaas gabdhuhu ay observers ama goobjoogayaal ka noqdaan goobaha waaweyn ee guddiga wada tashiga qaranka ee masiirka Soomaaliya lagu go'aaminayo maadaama madaxda fariisata oo maanta inoo talisa aysan gabri ku jirin. qorshahay wuxuu ahaa ilaa heerkaas gaarsiisana ugu yaraan in ay noqon wuxuu ka kooban yahay goluhu sidaad ogtiin madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ra'iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda iyo madaxweynayaasha gobolada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir maadaama intaas ka kooban yahay usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamula abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.